السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو dhawaada walaalayaal, halkan waa cashir keeni inoo socday English lessons insha Allah taala. Waa channel keeni ma bara ku soo dhawaada. Maanta waxaan hayaa cashir aan ugu talagalay dadka bilowga ah insha Allah taala. Cashirkaas wuxuu ku saabsan yahay ereyada halka ka muuqda this and that. This and that. This can and that yaka. This and that. This and that. This and that. waayo haddaad nagu cusub tahay subscribe dheh, gabadha kitaabo all kasii riix waa ishaga weliba muxuu ahaa inoo share gare, like taabo, comment waad noo dhaafi kartaa insha Allah taala. nagu dhiirigeli waad ku maasantahay. haddii aad nala joogto sidoo kale like noo taabo, comment noo dhaaf, soo share gare, intaa ha nagula caawiyo insha Allah taala. yaan laga baqaynin asxaabta qaaliga aad iyo aad baan kaga macalinayaa wax walba oo faa'iido aad noo sameysaan insha Allah taala ee dhiirigelin aad noo sameysaan. aad baad ugu mahadsantiin dhageysi wacan. This and that. This and that. This is used to indicate something near. waxaan leenahay this labada eray ee this iyo that ah, antan ayada waa iyo waa isku xire, waa kan iyo kan wey, kan iyo ka. This-ta waa kan, that-na waa ka. This waa kan, that waa ka. This marka waxay tilmaantaa sidaan meesha ku arki doono insha Allah taala. kan marka aad leedahay waa tilmaame ama tuse ayaa leedahay oo wax dhow ku tusinaya. that-na waxaa leedahay tilmaame ama tuse wax fog ku tusinaya ama ku tilmaamaya insha Allah taala. waxaa kaloo tilmaamayaan this marka aad leedahay waxaad tilmaamaysaa hal shay oo keliya oo ku dhow. that-na waxaad tilmaamaysaa hal shay oo ka fog ayaad tilmaamaysaa. marka insha Allah taala this-ta waxay tilmaantaa dhawaan, that-dana waxay tilmaantaa fogaan. kusoo dhawaada insha Allah taala. lambarka kow ama lambarka koobaad, this is used waxaa loo isticmaalaa to indicate inay tilmaanto something wax near dhow. This is used waxaa loo isticmaalaa to indicate inay tilmaanto. indicate waa tilmaamid ama tusin. indicate something wax near dhow. near, that is something near to you, wax ku dhow oo kale. something near, near dhow, something wax near dhow. eg tusaale, tusaale I number one, this is kani waxa weeye, this kani is waxa weeye a book, waa book. this kani is waxa weeye a book, waa book weeye. mana kan waa book. this can is waxa weeye a book. this is a book, kani waa book. mana book ama gacantaad ku haysaa ama boorsada kugu jira gacantaada gaarta. this kani is waxa weeye a book baa leedahay. number two, this kani is waxa weeye a pen, qalin weeye. this can is waxa weeye a pen, qalin. mana this marka leedahay maxaa waaye waa shay ama gacanta kugu jira ama ku ag yaala ama waa kaas ay gacantaada u gaarta. this kani is waxa weeye a book, waa book weeye. number three, this kani is waxa weeye a bag, boorso. waxaan ka soo qaaday arday alaabtii iskuulka haysta oo boorsada ugu wada jiraan buuggii iyo qalinkii iyo wixii dhan waa kana diyaar u yihiin. marka ayada u tilmaamayna waxaan leenahay this is a bag, kani waa boorso. waxaan awood mahayn this kani is waxa weeye a bag, boorso weeyaan. boorso marka gacantiisa ayuu ku hayaa ama way gaartaa way agtaada saas weeyaan. this is a book, kani waa a bag, boorso weeyaan. this kani is waxa weeye a pencil, qalin qori weeye. this kani is waxa weeye a pencil, pencil madaysa, pencil, pencil, p-e-n-c-i-l, pencil, qalin qori. this kani is waxa weeye a pencil, qalin qori. this kan is waxa weeye ama is waa, kani waa a pencil, qalin qori. mana this kani is waxa weeye a ruler, ama afan this is kani waxa weeye a rubber, rubber, tirtiro wey. this kani is waxa weeye rubber, tirtiro weeyaan. waxbaa lagu tirtiraa
وقالن قوري قبل دبل أجيرة مركز فرتها ليس أخوت الترنيسة أيها ربا ليلا ربا سو معناها لقوا سوق الجو جيران أما وهي أجر أولاً يلا ذا ربا ترسل مركز إن شاء الله تعالى وكا this مركز حيتلام مسا وحكودو حالي this is used ولا اسمها to indicate إلى تلام indicate something نية وحده number كلابات number 2 that ka حق جوجا وقافوجي that ka هلكا is used waxaa loo isticmaalaa to indicate inay tilmaanta something wax far ka fog from you adiga meeshaan farta u qoran far baad u akhrinaysaa far fogaan weeyaan that is used waa loo isticmaalayaa to indicate inay tilmaanta indicate something wax far ka fog from you adiga kaa fog something far from you something far away from you wax kaa fog adiga kaa dheer far fog from you adiga kaa dheer gacanta ma gaarta marka يجي تصالح 1 that ka is waxa weeye a tree waa geedka ka xaqu ka muuqda geed xaqaas oo ka muuqda waxaas maxay that ka is waxa weeyaan a tree waa geed that is a tree ama hadlaysa that ka is waa a tree geed ka waa geed waa istas mana is waxa weeye ama waa badaysa that is a tree kaas waa geed ama that ka is waxa weeye a tree geed weeyaan geedka marka xaq kale ku yaalo ka fogay geedka korkiisa marka shimbir waa saar waxa leeyahay that ka is waxa weeye a bird shimbir that is a bird kaas waa shimbir that ka xaq geedka ku dhiganta that is a bird kaas waa shimbir balad number 3 that ka is waxa weeye a crow waa tuke ama qaaqowsa u taqaanid that geedka ku dhiganta xaq kale ku jooga ma gaartid that kaas is waxa weeye a crow bad marka la waa shimbir oo dhan macnaha bad guud ahaan waa shimbir bad noocay doonta ba ahaata laakiin dadka is waxa weeye crow waa tuke crow crow dadka xagga joogeedka u degan is waxa weeye crow waa tuke dadka is waxa weeyaan an owl waa gumeys owl gumeys insha Allah erada eedan iyo waxa laga hormarinay ama antaan waxa erada laga hormarinay magacyada waan baran doonaa insha Allah taala hadda waxa macnaheedu raadin tiri marka tiri eedan macnaheedu baa raadin marka waa dib baan ka bari doonaa insha Allah taala soo wadna hadda leedmo si wanaagsan ula soo insha Allah dadka is waxa weeye an owl waa gumeys weeyaan owl shimbirka gumeyska leeyahay oo geed halka ku degan yahay tilmaamaysa dadka is waxa weeye an owl weeyaan waa gumeys dadka is waxa weeye a pigeon waa qoley that is a pigeon data ingiriiska saaranta xaq way ka fogtay data is waxa weeye a pigeon waa qoley data is waxa weeye a pigeon qoley walaal halka markaan this iyo that aan leenahay this-ta englishka iyo marka loo eego kan iyo tan ma kala laha af Soomaaliga anaga wixii noo dhow haduu niyayna kan baan ahnaa haduu naagayna tan baan ahnaa laakiin iyaga farqi ma kala this kan leeyahay ama tan waxay doontaa daadna wixii naga fog oo nin akaaban ana wixii naga fogaanaagana taas ayaan ana ayagu sida uma eegaane wax walba haduu niyado naagayba ama lab iidadig wuxuu yahayba daad kaas badaysa this kan badaysa marka insha Allah taala sidaas ay hal eray ugu qaadanayaan aad iyo aad u mahadsantiin good for listening insha Allah taala waad ku mahadsantiin thank you very much assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh